أنا إنك عاد لا أفكارتين حاجة لو كنا غير لها. بسم الله الرحمن الرحيم. هرتا دول قرن iyo shir qaran oo wax khilaaf ku dhacay dadku waa intaanay nuxur gaarin kelmadaha ay isku saayaan oo qof dhan ula arara anagu waxaan ku jiro waxa weeye shirkii saddexda xisbi qaran oo isu yimid oo khaladka iyo buuqa ka dhacay labada eray iyo shir baa la qabanaya iyo dood qaran baa la qabanaya iyo cid xaq ma laha saddexda xisbi qaran waxay u yimaadeen inay arrinta si waaqici ah nuxurka khilaafku muxuu yahay iyo maxaynu doonaynaa in la helo markaa anugu shaqeynkaas magaca aan isugu nimo ee shirkay ku socda horta waxa weeye saddexdii xisbi qaran oo ka wada tashanaya wixii dhibaatooyin jira hadda kumanaan heshiin magac qof waliba shaarkay doonaysa ay u garin kartee shirkayguna wuxuu socdaa saddexdii xisbi qaran isu yimid wada tashanaya waxaan ku heshiinay saddex qodob waxaa la yidhaha heshiis qoloba ra'yi bay wataa in kolka isu yimid dadkan isu yimid iskhilaafay ee doonaya inay waxooda mideeyaan qolo waliba ra'yi iyo fikrad bay doonaysaa inay kakala ka dhaadhiciso shirarka micnadu waa intaa markii aanu doodnay waxaanu ku heshiin ono iminka heshiis ku nahay saddex qodob oo keliya wixii kale saddex ka baxsan qolo waliba qumanaheedi baa qoortoos dhan waa ra'yigeeda waxay ku hadashaa ii joog saddexda qodob lagu heshiin waa maxay qodobka u horeeya waxa weeye aynu wada hadalno oo meel dhexdhexaad inoo ah oo aan midkeedna gurigiisa ahayn oo dhexeena shirka inoo qabato wada hadalkii waanu ogolaan meesha dhexdhexaadkeenu ka hadlayna waxa weeye akaademiyada iyadoo lagu heshiiyey kaasi waa qodob laba cisho waxaanu rafaynay maxaa ajandaynu ku heshiin karaan ka wada hadalla qolo waliba qumanaheedii sida iyaga ula muuqatay ay soo daysay annagu waxaanu taagnay haddaynu nahay xisbiyada qaranka waajibaad baynu wada leenahay waajib hal waajibna xukuumadda waynu la wadaagnaa wixii kale xukuumadda lama wadaagno xisbiyada mucaaradka waxay la wadaagaan xukuumadda iyo xisbiga xaakimka aba tanada ay leeyihin waxa weeye wixii ku saabsan doorashooyinka xaq waxay u leeyihin xisbiyada mucaaradki in ay helaan waktigii doorashadu ay imanayso in loo sii diyaariyo meeshii doorashada saaxadii doorashada oo loo siman yahay oo qalabkeedii iyo sharciyadeedii iyo waxbaanadba ay diyaar yihiin mudnaanta koowaad haddaanu xisbiyada nahay aanu xoogga saaray inu ka wada hadalnay arrintaas ahayd marka waxaan isla qaadanay inaynu gudagalno oonu ka doodno wax alle wixii ku saabsan doorashada oo dee mawduucyo badan ka soo baxayaan oon mawduucyada qaar isla sugnay qaarna noo dhiman yihiin labadii doorasho way soo socdaan maxaa laga yeelaya horta marka u horeysa maxaa laga yeelayaa in laga derso oo dib loo daraasaday doorashadii u dambeysay dhibaatooyinka ka dhacay waad ogeedeenoo doorashadii u dambeysay labada xisbi iyo dad badani waxay eed saareen kulmihi dee ma qabno fagaara nagamay raacin horta waa in la dersaa doorashadii hore maxaa xabaaday haddii wax eedana lagu helo de waa qaadanayna laakiin qaladaadkii dhacay isa aynaan ugu noqon waa inaynu darsano cashar ka barana casharka ciddii eedeeda qaadaana dee waa inay qaataay saxda waa qodobka koowaad marka doorashada arrinteeda gelaya kalabaad waxa wey maxaa shuruuc ka dhiman doorashadii oonu diyaarina ka saddexaad waxa wey maxaa qalab ka dhiman ka saddexaad waxa weeye waxaa loo baahanya diiwaangelintii dadka codbixiyaasha diiwaangeliyaashu waa inay noqdaan muwaadiniin somaliland ah oo la hubiyey inay muwaadiniin somaliland oo da-dii doorashada gaadhay tiina ma hayno malhin mogta qodobahaas o dhan aynu gudagalno oo saynu isu waafajinaa iyo muddadii doorashada ayaan isku raacsanay qodobkaas waa qodobka doorashooyinka kii guurtaa yaala weli sharciga lagu doona lama hayo waa sanadka ku xiga waxaa kasii adag labiyo sideetanka xubnooda baarlamaanka doorashadan hore lagu qabay mar qura ahayd berigaana xisbiyadaa ka heshiiyey akaademiyadaasaa noo dhex ahayd berigaana maantana waa arrin taaganoo laba iyo sideedkii sidii hore joogayaan miyase kalaa loo bedelaya waa yani qodobadaas waa qodobo aanu isla ogol lahay inaanu kala hadalno maanaan gudagelin qoloba ra'yigeedii may keenin marka xalka maanaan gaarin waa ajante inaanu arrintaa gudagalabaanu ka heshiin qodobka labaadanu ka heshiina waxa weeye arrimaha dibadda ictiraaf raadinta ereyga laga baanu isticmaalna ereygaasanu isku maxaanu isaga u keenay arrinta dibadda
waxa weeye waxa wadaagay markii la doonayay in Soomaaliland hadal la furo kulmiye iyo xukuumaddiisu waxay u soo bandhigeen xisbiyada mucaaradka madax dhaqameedka ururadii markaa tirtiray ku haray kale bulsho ummadda Soomaaliland dhammaan soo dhaxay war hadalka iyo arrintaas sama u qaabila يعني سين وقابلة مو قناة سومالان قرب أفرع إن كل راه هذا لي تنوع كم من قضية شركة إنها راعان ويقوم شو هذا والله القران لماذا قدومية حزبية معارضة قدومية كلمية إني وفتي حكومية ها لم تقضى تام حلو يعني سأل وذا شيء حوله فور تودي إنك قال السكون أنا وذا قال ما دام هوشة أين أصلين Soomaaliya inta aan shirib wixii talaabay horumariyay oo yar yahay imikana ay si kala yihiin iyaga dhexdooda arrinta aan wajirka u wadnay seen u sii xoojinaa way ma arkaa shalay waan dhageystay gudoomiyaha u cid xisbiga u cid iyo siyaasadooda arrimaha dibadda iyaga u gaartay Faysal raayadii uu qabay waa kuwa ku kooban u cid lama qabno kama na wada tashan سلام الناس وقال رفاع الرأي بينه وكو احتراما أنا وحنا قبنا بقول كيف بقول مثل كدور كسور كذا دام كل مين كل كأول رئيسة لبي لما تكي سنوات سيد برع الله وجوده هذا يدين لو ما تشنوا أمريكا رئيسة ما قبنا رأي قالوا كدور وحنا قبنا لما تكا إيه إلا ما أنت برع الله قاتي يوم أنت أو لبي سنوات إن مروا البلد الشرعي وما تلاوة قادم سيقرن محاكم ده وحلو يحد الرشاق قاتي وحين قام قرن لو قاتي أنصحني تسرق واحد قام قرن ولا قاتي وحلي يحد وعتين صور واحد كحل وطش يتلاوى قرن ولا قادني مركا أنا ما قبنا إن ما تور يتلاوى قرن وطش وحنا قبنا إن تابع لسوري سعيد دولة هراء يكون مانتا يقرياش هراء قرن يقرياش قرن كم تشوفه يحسب تقرنكم إن أنتوا بسوري سعيد ويكشرين قرن ويحسودين ويسوكرين ويملوا عنا كنا مدنا ما قبنا فكرة وأمدي برعلا وقاتي بير وقاتي دستور حقه إن شكل جريو وأنت عايزين تشوفنا ما أنت ما كنا قلنا ما قلنا عنه تقول عاقة منهم وحمتاجرنا هاي قرنا مدرسة ولا برعلا وقاتي بير وقاتي دستور كلا وقاتي اللوع عذي إلا بيسي ونصير اسمه أو أنت كنا كل أمر قبنا مركا ولا عاقة ما قبنا لما رقبنا وشركة قرنا أما ضاد قرنا أما وحي قرنا قبنا يقول ريه هاي وقولي قد بشكل كبير السعودية مركا تانا وركب دول تكلم بقول كسر جدا دولة حسن شيخ حمر كريس ميسا أما كوف سوالي بس كوضع به بوتلان شبلان بيدبلان حمرلان بس كوضع أنا أقول نص مالي الرباط مفرق لنا الله تالين تود الشقاق مريه دولة دي سووا حرس هاي بلارس من نقان قاب كودي سنة يان إيجا وطالع وحنو كربنا إيجا أو سومالي دي كونفرية طليانية وحين نقدر حيان كل هذا oo aanu si ictiraafan laba qaran oo walaal oo Soomaaliyeed dirisa oo waliba kala doodo xuquuqdana ga maqan xasuuqina ugu dhacay waxay naga dhaxay qaateen wax badan baan ku leeyahay dacwad baan la doonaa anagu nimo waa tash iyo la talin iyo dawladooda ay wax ka dhaxayaan fikradda waanu ka duwanahay anagu to ka soo jeedo taas aanu qabnaa taas waa fikradaha siyaasiga xisbiga qabaan waxaan u aragnaa shirka soo u dhacay anagu fikradda ka doonaa shirka waxa weeye inay xisbiyada qaranku ka heshiyaan برارتك الدورشوي الرمي دبده إنه سومالي كم السنين قدومياش حسبين نقول ترينا نمان كده ونقول جابينه واحد نكيرنا إنه مرات أنا عم تريق لقوي ديو سهل لقوي ديو مرة بنوع عدالة الأمور معي حسبين وترتبين مثل برنامج سياسي العوضة كيبي حسبي جاي مكتوبها يا كل مية برنامج عدو بدأ كيبي إنه فريانا هوش يسوي كتير السجى يقعد بحياج سبوا طالع برنامج كيسو فريا وحقوق قبته وخريا حزبيده كمان هشين كران إنا كوا هذان أرماه قرن نقارة سياسة الجلاه معهم كرا environment وحاول كلنا هاي وادي باتوي إما كشقلان توكله وادي باتقررون هاي ست لكن حزبيه نور سياسة قالوا كريه سيبل في الليسة نور أرتب كريه مركز حزبيه تاسو كلام دولا أنا ويكتر تمام ما هاد درجة هذا كرا لو كتر تمام وحنا نقصد شيء إن اللي كيرين برنامجية حزبية إن الشركة مثل دولا أو تدور فيها على نقطة يعني كذا هذا لو واحد يعني كذا شيء كرينا واحد كذا شيء كرينا دور شوية ونكمل السنة وبدأ حق ولدي
taa aynu wada galnay ee labada guddoomiye iyo madaxweynaha iyo saddex guddoomiye ay ka wada jireen ee Soomaaliya ku saabsan arrintaa oo xaggee Soomaalida ka gaabisayna tani ka bixin karaa xisbiga marka waxaan ku soo koobayaa aragtida aan shirkan kalena waxa weeye in xisbiyadu ay priority-ga saaraan doorashooyinka u qabanayaan haddii la doonayo mashaakil dalka in laga hadlo xisbi wala barnaamijkiisa ku qorto dee hadday xisbiyada mucaaradka ay kusoo midoobayaan waan soo dhaweynayna annagu kooda ugu tegi mayno markaa furi mayno dood aanay xisbiyadu ka heshiinayn oo jaawareer cidda laleeyahay si qaranka laga taliya arrimihiisa haddii cid aqooyahana ama research ama tala qaransiisa waynu baahana midiyaha ka mida tala bixin karaa waxaa ka mid a aqoon-yahanada kala duwan ka dhaqaalaha ka nabadgelyada ka environmentka ka tacliinta ka caafimaadka waynu baahna jaamacadaheena iyo raggeena aqoonta leh iyo hablaheena aqoonta leh inay qoraallo badan qoraan oy ku ururiyaan meelaha akaademiga ah dabeetana xisbiyada iyo dadka talada haya ay taladaa wax ka qaataan talada uu aqoon-yahanku qoray ayaa dadkan talada haya ninba si dee u fasiranaya oo ninba si uga faa'idsanaya markaan kuu soo koobo ummadda waxaan caddaynaa shirkan waxaa laga rabaa in la saaro khilaafkii buuq ahaa ee shirka qaran iyo dood qaran iyo qarankaa dib lagu noqonaya midna ma taalla meesha iyagana waanu ka heshiin magacaa timid magaca kasta oo buuqna gelinaya dastuurka hor imanaya qaadan mayno annagu saddex xisbi qaran baa nahay saddex xisbi qaran baa shiraya go-aamana soo saarayna annagu ma nihin akaademi sharsi intay tala dhiibaan meel ku tuuray waraaq guddida annagu ra'yigaanu qabnaa kulmi ahaan waxa weeye waa inay xisbiyadu shiraan arrimaha ay go-aanka kaleeyahin waa inay go-aan soo saaraan kuwa tala wada jira ay isku raacaan waa inay talada jirkaa u gudbiyaan madaxweynaha labada qodob meesha yaada dood kale oo buuqaya ma jirto sidaan waxu dhignay waxa weeye markaynu xisbi ahaan taa ka heshiino ayaynu dee meel kale u gudbi karaa haddii ay xisbiyada kale xoqanayaan doodo dhaadheer oo akaademiga oo cid soo gashay iyaga u taala waxaanu anagu uga baahana iyaga inaynu xisbiyo go-aan leh oo xisbiyo siyaasiya oo ummadda hogaameyntanu shiro go-aamo cadcad soo saara inay haddaan su-aal kaa weydiye halka hadalkaagan ugu dambeeyey baa tixraacdid waxaa tidhi xisbiyadii qaranka haddaan nahay inaan isu nimaadno oo talo soo jeedino dhinacoodana waxay qabaan in dood qaran la yeesho oo marka hore intaa idinku isu timaadaanad marka ereyga dood qaran heshiis maad ku tina ereyga maya ereyga waa kabuuq ka dhacay ereyganiba iyo shir qaran waa kabuuq ka dhacay annagu xisbiya qaran baana magaca xisbiya qaran baan ku shirana dood qaran muxuu uga jeeda anigu dood qaran saasaan arka saddexdii xisbi qaran oo soo saaraya waajibaadka lahaayeen siyaasigaa gudanaya oo iyagu tusanayaan u arka qofkii wax kale uga jeeda ha ku daro dhinac kale dad eegtid dabcan xisbiyadan mucaaradka kale waxay ka hadleen in wejiga hore ay maalintiiba dee dhowr jeer ku celceliyeen wejiga hore inaad idin kulmaysaan ay akademiyadu idin dhexdhexaadin doonto kadib loo gudbi doono in dad lasoo casumo marka haddaad hadalkan dib u tixraacdid waxaa meesha ka baxaya dadkii dambe imanayay oo waxaa lagu koobaya in xisbiyadin talaa bixisaan soo islama ogolo horta annaguna aan iska horreyno soo horta inaan uga heshiino maaha dee annaga weli isku anaan horreyn go-aanna maanaan soo saarin inaan go-aanka dambe aqoon-yahan u yeeriyen kala dikwanaan heshin waxaan u baahan doonay halkaan isla maray waan iska horeynayna inaanu heshiinayo inaan kala kicimo war waan u hayno horta aan isla gaadhna kala kolba salaadii la joogaan tukada horta annagu waan iska horeyno annaguna meel isla dhigno siyaasadda arrimaha dibadda oo kale iyada heshiiskan ku tiin in laga wada hadlo marka laga saaro ictiraaf raadintaada kusoo koobtay wada hadalladii Soomaaliya kusoo koobtay xisbiyada mucaaradka tala ka bixin karaan siyaasadda dibadda iyo ta dhaqaalaha xisbi loo siyaasad gaar u kaleeyahay laakiin hal qodob baa jiray oon wata shoro ka lahayn oon ka wada soconay oo labada xisbi qaran guddoomiyaashooda iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha yuftigu ay ka midaysnaayeen arrintii Soomaaliya ankarabeed turku dhexdhexaadinayay tiina way daahday annagu tii waan ka wada hore maxaa dhacay haddii siyaasadda arrimaha gudaha si furan loo dibadda si furan loo eego xisbiyada isku siyaasad ninba dhan buu xeegaya ninka ilaa haddii adigu taa xasan aynu u tagno xasan aan la talino xasan aan dhisno markaasaynu xelinaa anigu tayda waan ka duwanay kama heshin taa kama wada hadlayno taa barnaamijyadaasaynu ka kala leeyahay waanu ku ekaanaa wixii aan hore uga heshinay laakiin mas'uulka ka gudoomiye mowqifkaagan dambe wuxuu keeni karaa in arrintu soo nurgiyo kale xisbiyada kale ay qoonsadaan oo kale oo arrintu halkii ku noqoto xisbiyada intii aan ku heshiinay inaan heshiis baan karnay saddex qodob aan ku heshiinay arrimaha doorashada ka wada hadal arrintii ictiraaf raadinta intii aanu ka midaysnaan ka wada hadal halkaas taagan tahay inaguna aan isku horeyno arrimaha dee gudagal maana gudagalada arrimihii marka la gudagalaa ma lagu heshiiyaa ma lagu diidaa laakiin anagu waxaan diyaar u nahay haddaan xisbi xaakimka nahay inaan weliba heshiiska raadino oon wax badan isoo dhaweyno oo aan khilaaf dhexdeeda ka imanin ayaanu diyaar u nahay su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo dabcan akademiyadda nabadda ayaa iyana qorshahan dee
قيب حادنا ما أنت وادي جدي أديك بالشيء إن ينقل كل شيء إن عيد أجنبي ما تقولين صراحة وكله إن ودمية حزبك وطني وكله عبد الحائر وشيء إن ضلك شارك على صورة قلتها ومرتدي بدين كسو قيب كشو كل مدينة فكديار موتين إن رأب بشان دي عيد بدين وكله يتراضون كسو قلنا فكرة أنا كوه هذا لما هو تيس جارك أنا وحي أجنبي أنا مندي دم وعندنا ما أقولنا إلى أن قارن محله بير أجنبي هل كل شيء كانوا مركا أي مشوا تبغى دوا لقى حظي أجنبي ودي إمك تلا أنا قارن فرق تلادين تلا أجنبي أنا بحناوات هذا أنا ما عرفنا دارين لو نوم سوق بالمدة أجنبي نقول حقله ده ما عرفنا مركا إنه سكوت الدوا هذا إنه إحنا بدنا ما يسمونه إحنا أجنبي قبعنا أنا ولا عم قبل كالسونة وأنا قرأنا إنه هشين كالسونة وأنا قرأنا إنه فكرة إنه سوي مريا مركا أنا ما قبلنا عبسة أجنبي هلوية إلى أن نقول كيانو إن عندنا صور حكش حاجات ممكن إنكم قلنا غسان ممكن تلاوض حكايات قلنا غسان حاجة شركة يجب أن نوضعنا أجندي أشياء نكون شيء وأنا برابنا توضع يجب أن نسخر علينا ونبغى حنكون شيء إن شاء الله إنه أتصف كلنا نقول كذا أوكي وهذا وديكته تحري هذا وديكته ما برام كفاية ديس إن هذا الجود من أرنك الرأس طبعا حرلايه الجود بس نشارك كهذا اللي أنت نروح يريده إن حزبي كم مثل كروح حكومة ده حق ما لها إنه كم مثله إن رأي هو حزبي ونوي مركا ضوضة قريقا جود إذا صدرت أردنا كاس قضاء بشر عمك قال بنا قررنا بمشي كويا لاني مش كويا أردنا ما كلو هذا دي أنا شرعي سوى كلام مرمو أو كل بعض كلام بيوجد لكن مش وكورنا حزب الحاكم حكومة دي سما مثل كرا أو يكلدويه ميرو كويا لما أعرف مناقب حزب أي حكومة ترى بدليه واسكمد أنت ترى نقوده قال لي طول ونبدأ نقوده قال مركا شرعي أو شيء أنا احترام يا قريبان كاس أنا ما أعرف ميرو كويا منو وتقول مين تدخل واحد تون جرين كلام اللي هي حكومة الصومال المصبحين ما قبل تفكك سجي محمد كريم بوطة أغلب النوع مع هذا وحالته وحيرة خلاف كابرد كشكل وقلنا أشخاص من هنا هبريه بالملي حكومة دي كل مية حزب ودي بارنا تلا ودي أنا قادنا تاني يكوا كلام السم ده يسمى بان كذا قلا الجد أنا كذا لنا قام بان كذا لنا وأحد كذا شيء وأنا كذا صعنا شكلنا كم يسوق لك عقليتنا ما بقى حدي هبريه بالباطي هبريه بالبكدول ما شفته إلى ما دحوينها وحنو كلا راي قام مديسن يتلا مديسن تاسان خصنا يا صدق ها